waxaan u sheegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dowladda dowladnimada iyo qarannimada waxa inoo ballana intuu Xasan Sheekh xilka hayo iska daa wax kale dil iyo waxa iska dhaafay yariin in magaalada Muqdisho dabka la saaro dabka in la saaro ina suuqyada gubtaan guryaha qarxisaan meel kasta baabiisaan Xasan Sheekh waa inuu ka taga meel eber inuu ka tago way ka u yare muxuu qaban karaa waa inuu leetar ku qabto suuqa bakaara gub waayo dadka halka degan baan ahayn dad dowladnimo raba ma aha dad dowladnimo raba annaguna waxaan tusaynaa in ayagu baahin dowladnimada nabadda nin Ethiopia keedba wallahi ku gubaya nin ka yimid Kenya dabku ugu qabsinay waayo asoo dhulkiisa waa nabad marka ballanteenu waa Xasan Sheekh intuu joogo dad waa kala adkaan jire siyaasadana waa lagu kala guuleysan jire farmaajo barqad loo dabaaldagahay war Ilaahay baa idinku dhaariyay dadkan barooranahaya oo ooyahaya oo social media diifka saa u daadinaya maxay taa anagu waa yaabna waa la hoogay maxay taa dadka war dadkan xagay jireen markii dalka dhan waxa weeye farmaajo u dhibaateynaya xagay jireen dadka maanta ooyahaya xagay jireen markii qalbi dhagax la dhiibahayay xagay jireen markii dadkii bariire lagu leeynahayay xagay jireen markii dadkii baydhaba lagu baabi'inahayay xagay jireen markii Cabdiraxmaan Cabdishakuur la weerarayay xagay jireen markii Kiran Tahliil la qalanayay xagay jireen markii madaxweynayaasha la weerarayay xagay jireen markii aan meedadka garbaha ku sidanay xagay jireen marka wadooyinka Muqdisho afartan dhagaxyo lagu gooyay xagay jireen marka dadka la bahdilahayay xagay jireen markii Jawaari la ridayay oo hantidii dawladda oo dhan la dhacay xagee jireen markii mursal musqusha waxa uu ku gala waayay oo kaadida ku dhigtay xagee jireen dadkan ii sheega xagee jirteen waa idinka maanta wada barooranhaye ogaada Soomaali waxaad baraysaan dad yahow qabyaalad baad baraysaan qabyaalad ma naqaan hana barinina qabyaaladda inta Ilaahay ka cabsataan intaas waa aamusnaydeen shab hay hadeertaan baa la wada barooranhaya wadankii gacantu ka baxay cadow baa qabsaday waxa walba igu daran waxa arkaya kalaab hoos kuwa kale odawaa mu dalka inqilaabo ma ninka guriga Xasan Sheekh Maxamuud kushiinkiisa fadhiyay baa wax inqilaabi kara war hooy dadka ru'yada iyo riyada ku jiro iska daaya waxaas wadanka waa doorasho galay waa lagu kala adkaaday nin baa madaxweyne Ilaahay u qadaro noqday haddaad farmaajo jeclaydeenna hadee farmaajo jeclaado oo raaca haddaad dalka jeclaadeenna ka daaya baroorta beenta iyo baktiga iyo bukhliga ka daaya aad ku wadaan markuu Nabi Maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam Abu Bakr as-Siddiq baa wuxuu u yimid saxaabadii Umar Sayf la kor taagan yahay Umar waa aamin waay Nabi Maxamed inuu dhintay Abu Bakr waa istaago wuxuu yiri man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun baaqi qofkii Muhammad caabudi jiray Nabi Muhammad waa dhintay qofkii Ilaahay caabudi jirow Ilaahay baaqi waay qofkii farmaajo jeclaan jirow farmaajo dhimay oo tag siyaasadahan buu dhintay ayadoon la jeclayn buu wadankii ka baxay xilkii waa looga guuleystay sida arkaysaan kartoomadii baasada buu raranaya madaxtooyadii waa ka soo baxay caaw haddaad farmaajo jeclayd hadda asaga raac annaga noo barooranay haddaad wadanka jeclaydna wadankii baaqi weeye waa nool yahay wadankii horta intaas ay idin leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay walaa gacaliye goormaad horta xilka dhamaysanaysaa afarta sano ee soo socota dadkii farmaajo wuxuu siiyay lama yaqaan waa wada barooranaya diifkay wada daadinayaan waa waray bay ku hayaane afarta sano waxay kaaga dhamaanaysaa adigoo haba qof isku jabinayo waalan oo xabeeb u sii wada adoo haba qof isku jabinaya oo war hore ka marale war qabqabta leh war gardaduuba leh waqti horta ka dhamaanaya ninkan dadkii iyo dalkii wuxuu siiyay lama yaqaan dadka dhan waxa weeye balaayu siiyay midka dibadda jira waxa uu siiyay garan way midka dalka jooga waaba sixraa la dhiilay farmaajo dal burbursan kaliya kama tagin xataa dad mentally barabaleem qaba oo bukaan socod uu ka tagay wax la sameeyo lama yaqaan ma dadkiiba hadda la dabiibaa ayagii miyaa la soo xirxiraa ayagii miyaa la quraan saaraa ayagii miyaa rusheeyare loo geeyaa mise wadankii wax laga qabtaa horta dhibkaas Xasan Sheekh Maxamuud sugaya meesha uu soo ordayay dad mentally barabaleem qaba meesha fadhiya waxa wax walba iga daran
gabadha hadeertaan waxay leedahay ilaahowna rog ilaahowna rog ilaahowna rog ilaahowna rog ilaahow daad nala tago ilaahow biyo nala tagaan ilaahow abaar nala tagaan ilaahow ku 900 eberti noo celi ilaahow qarax iyo wadanka waxa ku kicisaa abaaro ilaahow shabaabkina soo gadoodaan ilaahow xarumaha dhan la wada qarxiyaa ilaahow macal Puntland dadka qaraxdo ilaahow waxa gaabna xasan madow horta cadani u horeeyaan ilaahow anigana igu xiji marka dalawadaas intaan rajo wadanka weyn moogto ilaahow farmaajana intuu gadoodo waxa ciidamada hana inqilaab inta sameeysan wadanka baabahay brand jira naga dhigaa oo 900 eberti ilaahow loo noqdaa oo waxba sas loo rusheeyaa ilaahow waxa ka barna marka dambe dhulkana la goo gabayr ma ka baxana la waaye ilaahow na rog rabbiyo haye ilaahow dukum daakum naga dhigay leedahay xagee u socotaa maxay hormarsad walaalayaalo waxaas annaga naga gadinina annaga hadda ka hor aad nasirteen wadaniyad beenaha noo soo huwateen waxaad tiraahdeen dal iyo dad baan taraynaa wax aad tarteen dhamaana arag marka ma taqaanaan miya masawiraatiin wixii waa la idinku barteen oo intii hadda bilaabaysaan waba hadeertaano xasan sheekh maxamuud 4 maalmood fadhin baad tiraahdeen 1400 maalmood baa idin hadhay maxay tahay waxaas ilaahay baan ku dhaariyay farmaajo ma 1400 buu fadhiyay hal sano iyo bar buu ku darsaday 1600 buu ka dhiganaya xasan sheekh maxamuud hadduu rabo idinkaa jideeyey waa aamusteen shib xagee jirteen markii ra'iisul wasaaraha la inqilaabayay xagee jirteen markii extensionka lagu darsanayo wadanka qalaasada uu galayay hadda anaga noo barooranaysan abwey waxaas naga daayay la idinku baray waxaas